السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo noqod wanaagsan dhamaantiin qeyrteeda ugu xiran waa idin salaame. Salaan kadib waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo insha Allah Fahrenheit, Kelvin iyo Celsius sida isku bedelaan ama sida loo shaqeeyo calculation-keeda. Marka dhamaantiin waxaan rajeynayaa insha Allah inay soo subscribe iyo like iyo saari doontaan insha Allah. Dhiirigelintu waa xaggeena. Casharkeena bilaabaneynaa. Okay. waxaan ku bilaabeynaa Celsius qaaciduu leeyahay. qaacidadiis waxa waaye haddaad rabto ama haddii lagu siiyo ama lagu diro Celsius lagu diray oo ah waxaa dhahdaa Celsius waxaa lagu siiyay 327.5 oo Celsius ah. Celsius degree calaamadan degree وبدل ولا to confirm أما to confirm أم to degrees بدل degrees وجدنا فيها إن شاء الله. ودريم كرا على جرا أسكجران لكن وحلينا إن شاء الله ديك ملهن to degrees Fahrenheit أما Fahrenheit سو جاوي. أوكي marka lagu siiyo Celsius oo bedelayso Fahrenheit qaacido ama sharci jiro oo ah tiradan lagu siiyay qaabka u fududaan soo gudbinayna insha Allah. tiradan lagu siiyay oo ah 327.5 qaabka u fududaan aan soo gudbinayna maadaama isku badan yihiin laakiin waxa ku dhufanay 9 aan ku dhufano 327.5 lagu dhuftay 9 meeqa 2,947.5 marka xaaladan aad joogto division isku bedele division waa sharci. waxaan u qaybinay iska markaas 5 u qaybi tiradan ku soo baxday adoona ku bixin calaamadan waxaan dhahdaa calaamadan answer division 5 leh meeqa ku soo baxday 500 589 dhibic 5 marka xaaladan marka meeshaas marayso marka hore Celsius lagu siiyay Fahrenheit lagu diray tiradan haysato 9 ku dhufatay 2,947.5 ku soo baxday 5 u qaybinay waana sharci. tiradan ku soo baxday 32 ku diray marka inta marayso qaab u fudud oo ardaydu ku fahmi kartaan waa marka in marayso balaas leh 32 leh is equal a leedahay 621.5 maxay ahayd Fahrenheit. Fahrenheit jawaabtu waa haysataa hadda. marka hore Celsius lagu siiyay Fahrenheit lagu diray 329.5 oo lagu siiyay oo Celsius ah waxa ku dhufanay 9 mobilka xarkiya isku jir raw noqdo 9 ku dhufanay tirada ku soo baxday 5 u qaybinay tirada ku soo baxday 2 ku daray wax ku soo baxay jawaabta Fahrenheit ku haysta qaabka u fudud ee ardaydu ku fahmi karaan. example 1 way kan mid labaad aan ku daro mid labaad wuxuu noqonaa waxa dhahdaa 89 leh mise hal mid aan sameeynaa hal mid aan sameeynaa waxay tahay tiradan kan waxaan ku soo celinaynaa Fahrenheit aan ku soo celinaynaa bas maya Celsius ku soo celinaynaa meeqa 621.5 oo Fahrenheit ah u bedel degrees Celsius
celsius kana u bedelina kana marka tiradan ku soo celin rabnaa marka hadda waxaan haysanaa Fahrenheit haysanaa waxaan u bedelaynaa tiradan u bedelnaa rabnaa markaan waxa way xaaladdu isbedeshay hadda waxay ay 9 ku dhufaneen hadda meeqa haysanaa 621.5 markaan xaalad waxaan gaarin oo inaan u bedel markaan waxaan raadinaynaa celsius raadinaynaa markaan waxaan raadinaynaa Fahrenheit markaan celsius raadinaynaa okay celsius degree okay markii celsius aad raadinayso fast waxa hore maxay ahayd balance intay noqoto ugu dambeysay noqonayso markaan 62 ay noqonay jari waa naga jare waan isku dhow yihiin muujada na jawaabtan aan soo saarna rabnaa oo sidee ku imaaday okay waa ka jare markaan sharciga qoftan waxa waay waa ka jare 621.5 waxa ka jare 62 markaan balance intay ugu darsameysay laakiin markii la raadinayo celsiuska oo Fahrenheit lagu siiyo marka 600 tirada lagu siiyo oo Fahrenheit waxa ka jare 62 oo sharci ah ka jar marka laga jaray 62 621.5 laga jaray 62 589 maxay ahayd marka equal 589 wax point ma la socdo point 5 marka xaaladan aad joogto markaan waa kala jarna markaan macnaa celsius raadinayna Fahrenheit nalsi waa kala jarna 62 iyo waxaan kala jarna oo 62 sharci waa mar walbo 589.5 noo soo baxdo markii 589.5 noo soo baxdo tiradan waxaan ku dhufanaynaa markaan inta maxay ahayd 9 lagu dhufanayo ha inta markaan 5 aan ku dhufanaynaa 5 sharciga waa isbedel muujada lagu dhuftay 5 maxay noo soo baxay 2,947 waxay la mid tahay 2,947.5 okay marka xaaladan amaros marka intaad joogtid waxa dhigay markaan qaybanta da iimaanay marka maxaa loo qaybinaa 5 loo qaybinaa maya 9 tiradan haysato waxa u qaybisaa 9 isku fiir waxaan soo baxay jawaabtu waxay la mid tahay 327.5 oo celsius degree marka qaray waxaan rajaynayaa inaad faa'iidaysteen mid kale inaan ku daraan jeclahay insha Allah marka mid kale oo yar waxay dhahdaa kan waa fahanteena filaa marka hore markii celsius aad raadinayso marka hore laba ka jaray markii Fahrenheit aad raadinaysana 62 balaaska waxay noqonee waana waxa ugu dambeeya aan sameynayso waa marka hore 9 ku dhufanay 5 u qaybinay jaad ku soo baxday aastay ku daray jaad ku soo baxday Fahrenheit haysta kanna markii celsius aad raadinaysana 62 ka jaray jaad su'aasha kan lagu siiyay tirada lagu siiyay jaad ku soo baxay 5 ku dhufanay inta maxay ahayd 5 u qaybinay inta ku dhufay isku bedeshanta intana 9 ku dhufashay ahayd inta u qaybinay isku bedelay kadib jaad ku soo baxday waa haysta celsius marka waa u jeedin celsius iyo celsius isku mideen Fahrenheit waa marka waxaan rajaynayaa inaad wada faa'iidaysteen إن شاء الله هدو إلى إذن دمانتين وما سنتين متك بدن وصوّدا إن شاء الله.